والله سمري سمر كيسي وسمرينا ما تميدي سارك سوما اسم حق لدي أنا أهان حنكلا هاي سيبا رك هدان دليلو حنكلا هاي قبلها عطو أولدا ديو كافوقات انت ساندي لا رك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا لها كسر هذا معلمو channel ساسو aragteen runtii waxaa isu jiitay hadalkaas oo ah hadal runtii ka soo yeeray fanaanadana weyn ee Nadiira waa wax runtii aad u fiican intaan u guda gelin ka hor فيديو قصد الاستاج دونا هنتي وفيديو أو آد في عنتها إن لقيمة ولا قدريو أيضا وأوهم بلينا هنتي أيدي سيجدا صور كاس وناكسن أنا قصي سي قف ويا هاي شخصيا حاجة جيدة وواحد وناكسن أنت عن الفيديو قصد أقول لك الكار وعنها وأنا أمه دعلي أصحاب بدن أو هنتي نوصل بيرتي كوني كوجر أما سنتين كوستو هذا معلمو channel هنتي أنا هالكان وح أنت بدن وجدت مرمر بنأدن لي هاي روتي أنت بدن لكن واحد كما يا إن وحيابه أنت بدن حسكت ديا إن نيسو قد بيو وح وناكسن أو كفرح دان وح وناكسن أو ملايو إني وناكسن ساد الفيديو العمل أصاركتين أو أن دامن دونه كليب كود مسترن وح وناكسن ina arko marwo runtii ku faanayso xaajigeeda oo leh marxaladii adkaa aan soo maray ayuu igu soo samray haddana wadkiisa ayuu dhabta ku haystaa waa wax wanaagsan Nadiira soo ma hambaleenaya ayad iyo xaajigeeda labadaba wax aan ka qaadan karno videoyaasha noocan oo kale taa waxa waayo waxyaabo aad u badan laakiin waxa ugu muhiimsan waxay tahay oo tusaale u ah inta badan waxaan dhihi jiray dadka caanka ah magaca bulshada ku leh qad Nadiira camal qof caan waayo xaajigeedu waa fanaan kale oo sanad caan ah laakiin labada marka la isku bardhigo waxaan horbaray Nadiiro marka laakiin waxyaabaha aan ka faa'iidi karno oo runtii laga rabo in laga faa'iido dadka caanka ah waxyaabaha camal u ah in waxyaabaha wanaagsan ay dadku u soo gudbiyaan instead for isu gudbin lahayn waxyaabaha marka أنا شخصيا وحان كقادن كرا on runtii videogan ay message ay gudbin karto waxay tahay oo gabdhaha Soomaaliyeed u gudbin karto waa arkay ayada ragga Soomaaliyeed galayso laakiin ragga Soomaaliyeed galowga ay gashay waxa waaye in runtii ay ogaadaan baahida dumarkooda ama xaaskooda waqtiga ay u baahan tahay caawinaad waqtiga u baahan tahay garab istaag waqtiga u baahan tahay in runtii la caawiyo ee mudan tahay in la caawiyo waayo qof bin aadanka maray dhigta caawitaan u baahan gabar noo sheegtay nafteeda noo sheegtay dabcan gabar hooyo ah way dareemi kartaa waxa oo hooyooyinka la dareemayaan marka saan ognahay dhamaanteena waa isku baahi hooyo meel walba joogto marka waxa la rabo inuu caawiyana waa ragga Soomaaliyeed inay garab istaagaan caawiyaan runtii ay marxalada adag markay ku jiraan sida walaashay Nadiir noo sheegtay camal in qofka bin aadanka aadan ka tagin ama aadan ku nacin ama aadan ka xanaaqin ama kala tag uu ku dhicin macnaha hadda gabadhan waxyaabaha ka hadashay oo ugu weyn waxa waaye dabcan marxaladii soo martay adag oo qofkas dareemi karo marxaladii ayaka ahaa xaajigeeda dhabarka u xirtay oo u dulqaatay say sheegtay inuu ku ammaantay in maanta ay runtii ay wadkooda ay daabihinayaan labadoodaba waa wax wanaagsan runtii ay wanaagsan tahay in la qaato laguna daydo waxay kaloo ka dhawaajisay Nadiiro hadaladeeda aan ka qaadan karnaa 10 waxa waayo dabcan adduunkan waa weyn labada qof isqabto qasab maaha inay wada joogaan nolosha inta ka dhiman isku dhacay imaan karo kala tagay imaan karo fariinta kaloo ay dirtay waxa waayo ay ragga Soomaaliyeed ay yara qaniintay waxa waayo maxaa la dhihi jiray waxaan ognahay inta badan hadda qurbaha kuma arkin runtii qurbaha wali waa lagu arkay laakiin saama badan waayo qurbaha kastoo awooda jirto awood ilaha iska laakiin kastoo بالعند كستو أود إلى السيم كاسي أفيرسد أي رجع جعس كده كلام طلاب في كوي أفريقيا
marka taas sir way hala qaato marka waxay ka hadashay waxay tahay waxa waayo laba qof ay isqabtay ilmay dhaleen labada qof calafkooda ama way kala tageen raggii waxay isku dayaan in runtii ay si oo qaldan oo dhaqmaan dumarkii ayaga oo runtii ka aarigusanaya ilmihiina meesha ay ku baaba'ayaan marka ay message ay diraysa waxa waaye aan ka qaadan karnaa nadiir waxay tahay dabcan labada qof way kala tagi karaan markay kala tagaan waxay leedahay ragga ha joojiyaan xagashada faraha badan ee dumarka xaganaa markay kala tagaan ee ammaan ha siiyaan مسجها مركا خير بدنا واحد هاي وقفها لك الباشا لكن أنا كالباشا من قادنا عيو وحنا قادنا كرا شخصيا أنت فرين جود بنيسة رجع صار مالت مل وجودنا جود بنيسة طبعا هذا يحب بس الله فرين تكوات يحب بس قبلها صار مالها كان طبعا يحب بس رجع صار مالها وقبلها فرين تقول بس وحياة هاي إن السكوت القاعات إنه ونكسنت هاي إيه فائدة آلة شكت سمرك الدخات كفائدة ولها ويبحث شكتي xaajigeeda inuu u soo samray ayadoo ku jirta marxalad adag waa wax wanaagsan mase asaga ahaa runtii wuxuu ku socday gabdhaha inay qaataan ay mudan tahay kan kale torag ku socon waxa waayo in marka la kala tago la joojiyo xagashada faraha badan ee dumarka la xaganay way qofto kala tagteen ilma inay dhaxay tusaale ahaan ilmi si wanaagsan u korsada ee banaanka kala mara laakiin ha dhibin ha dulminin waxba dhibaato ay ku ah sameeyeen taaba masika qaadan karnaa masika kaleeto oo runtii la qaadan karo am fariinta kaleeto aad ka muhiimka ah ee nadiir la qaadan kara waxa waayo in ragga Soomaaliyeed ay u turaan ay ogaadaan ay u naxariistaan ay u samraan dumarkooda markay ku jirto marxaladaha adag ee hadda ay sheegtay kala marxaladaas qof kasta garan karo marka waana wax runtii fariimo aad u wanaagsan aan ka qaadan karna nadiir neelus waana ugu hambaleenayaa ayadii xaajigeeda waxaan kaloo u sii hambaleenayaa xaajigeeda waxaa u maleeyaa magaciisa la Idris inuu u hambaleenayo runtii inay ku tilmaanto qof noocaas oo kale ah waxaan kaloo arkayay asaga oo runtii xaajidiisa ka farxiyay waxaa u maleeyaa inay ahayd waqtiyadii ay cunugii u dhashay dahab u keenay maasha Allah ayadoo oynaysta waa arkay oo dhibtiisa ku oynayso waa wax wanaagsan marka Idris waxaan dhihi lahaa asxaab badan oo aan ka saay Idris 10 laga qaata nimiyo waa nin wanaagsan waaye qasab ma qofkana wax u gadid laakiin hadda awood u gadi kartaa laakiin hadda awoodna ma gadi kartaa laakiin mid waxay tahay inaad qof naxaayo naxariisanayo qof kala dareemayo marxaladda uu ku jiro og wax walba oo qofkaas ku soo kordhay xaaladiisa waayo qofkan wuxuu caloosh ku wada waa ilmahaaga marka in runtii u naxdid ilmaha dan u jirtaa adadan ku jirtaa aydan dan u jirtaa which means dantii dhawr marka laga fiiriyo waa wax aad u wanaagsan in runtii ninka ragga amarba uu naxariisto u dulqaato marka asxaabta fariimaha noocaas oo kale markaan arko waxaan jecelnahay inay soo gudbiyo dabcan qaarkiina waa laga yaabaa inay aragteen qaarkiina inay arkin laakiin waa wax wanaagsan runtii in bulshada loo soo gudbiyo waa wax aad u wanaagsan shakhsiyan aaminsanahay nadiir neelus iyo xaajigeedana waa ugu hambaleenayaa kun iyo kow jeer waxyaaba noocaas oo kaleeta ah fariin kale raba halkan inaan ugu diro tiktoleyda dadka tiktok ku jira inta badan oo live ku jiro waxaan arkay gabadhan iyo walaasheed shaadi sharaf in runtii lusku raadinayo qaab dhaxdooda buuq uu ku barada laakiin waxaan ku ammaan labadoodaba in wax asdaya ka qarteen aysan u jawaabin dadka noocaas oo kale ah waayo waxaan arkay badana nadiiro tiktok live kuma arkin laakiin waxaa tiktok live ku arkay shaadi sharaf oo leeyahay nadiiro noo ammaan nadiiro magaceeda inta ku qoro nadiiro saan samee ayadan ay ku adkaysatay in nadiiro tahay qof walaasheed ah ixtiraam u hayso waa wax wanaagsan marka waxaan dhihi lahaa tiktoleyda noocaas oo kale ayakan runtii gabdhahan walaalo waay si ay kanoo sheegeen dhammaantood ognahay soo wada jabhadeeyey waqti qurux baan soo qaatay dadka way kala mashquuli karaan hadda qof walba hooyo noqday sa arkayno reerkiisa iyo arrimihiisa ka badneen marka qasab maaha in sida beri wada joogeen hadda wada jooga waayo beri hore dad waxay ahaayeen wada ceesho hal guri wada degan inta hadda ana ka aragnay wixii ayaga u qarsoon allahu aclam anaka danteena maaha laakiin inta hadda ka aragnay waxay tahay in lagu mashquulin faraha laga qaado waayo beri hore saa inay sheegay laba qof waxay ahaayeen iskaabul ah
guri wada degan hal qol wada kiraysan kara oo wada ciish kali ahayn laakiin hadda qof walba mar uu noqday guriga kasoo kacaya marka sidoo hore ma isku arki karo waxaa aad u wanaagsan marka in arrimaha noocaas oo kale ah laga waantoobo gabdhahan aan runtii waxyaaba negative ah aan isku raadin ayaan dhihi lahaa waxaan fariin u dirayaa dadka TikTok ku jiro oo su'aalaha qaldan dadka weydiiyo asxaabta halkaas ayaan kusoo gabagabeynaa videogeena hadday tahay markuu hore janalka aad soo booqatid fadlan subscribe inoo saar waxaan dhihi lahaa markii hore meeshaas jacayl ma ku jiro waan ku arko waan ku casho waan ku raacay bay ahayd because qofka ku jecel waa qofka kuu sabra siduu Caydiid sheegay waan ku sheegay anuu markaan uurka lahaa too much waxaan noqday barbalay laakiin waa la samray samarkiisii u samrayna maanta midiisa arkay sooma because ilmihiisa yaraa uu arkay anigu ila joogaan oo caafimaad qabo uu arkay marka sabraa sadkiisa helaaday rag dumarka u samraan wax uu ku fiicnaanaya waayahay markan caawa waxaad wakiil u tihiin fanaaniinta Soomaaliyeed arrintaas maxaa ka leedahay anoo ahaan waxaan ka leeyahay siiba ragga haddaan dhaliilo waxaan ka leeyahay gabdhaha waa hogiina gabadhu waa maradaada marka xaaskaaga soo noqoto aad guri iyo nolol iyo wadaagtaan hadduu calaf ku dhamaado oo aad kala tagtaan ha xaganin ha ceebeynin ha xumaynin macnaha ha ahaato oolidaadii oo kaa fogaata intaasaan dhihi lahaa ragga